kulan wacan daawadayaal halkan warbaahinta Hiiraan online ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta si rasmi ah u daafuray xarunta cusub ee taliska sahanka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalka. xaruntan oo si casri ah loo dhisay ayaa lagu qalabeeyay tiknoolajiyadda sare ee loogu talagalay in lagu xoojiyo awoodda istiraatiijiyadeed ee ciidamada qalabka sida loogana hortago khataraha amni ee dalka ka jira. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta ku tilmaamay mid ka turjumaysa dadaalka joogtada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ku bixisay dhismaha iyo tayeenta hay'adaha amniga iyo difaaca. waxa uu carabka ku adkeeyay in xaruntani ay si weyn uga caawin doonto ciidamada howlgallada sahanka xog ururinta iyo qorsheynta istiraatiijiyadda amniga ee dalka. madaxweynuhu waxa uu xusay in horumarka laga gaaray dhismaha xaruntan ay aas-aas u tahay isku duubnida shacabka Soomaaliyeed iyo geesinimada ciidamada qalabka sida kuwaas oo naf iyo maalba u huraya difaaca dalka. intii uu socday munaasabadda madaxweynaha ayaa si gaar ugu mahadceliyay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dadaalkooda joogtada ah ee ku aadan dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka. waxa uu xusay in dowladdu ay si buuxda uga go'an tahay in la sii dardargeliyo dadaalada ku wajahan sugidda amniga guud ee dalka. madaxweynaha ayaa sidoo kale kormeer rasmi ah ku tagay xarunta wasaaradda difaaca halkaas uu kula kulmay saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. intii uu halkaasi ku sugnaa waxa uu dhageystay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan guulaha laga gaaray dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab isla markaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay shacabkooda nafta u hurayaan gaar ahaan dagaaladii u dambeeyay ka dhacay gobolka Galgaduud iyo soo kale gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku celceliyay markasta in ay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka kuwa dadka deegaanka iskaashanaya. dhinaca kale ciidamada Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa la keenay magaalada Muqdisho si halkaas loogu daaweeyo xaaladooda caafimaad. ciidamada oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa si degdeg ah loogu soo qaaday xarumaha caafimaadka ee caasimadda gaar ahaan isbitaalka xoogga halkaas oo lagu daaweynayo xalay markii ay ciidamadu soo gaareen Muqdisho. waxaana isbitaalada ku booqday mas'uuliyiin sare oo ka mid yihiin xildhibaano, saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin dowladeedba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in dagaalkii Ceeldheer ay ku dhinteen 6 askari halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in howlgalkaasi uu ahaa mid culus oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarka ballaaran ay uga hor yimaadeen kooxdaasi al-shabaab. qoraal rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa shaaca looga qaaday in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen al-shabaab iyadoona gacanta looga dhigay maxaabiis. in ka badan 30 argagixiso oo al-shabaab ah ayaa la dilay halka saraakiil sare oo ka tirsan kooxdaasina la qabtay kadib markii ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay fashiliyeen weerar dhowr jiha ah oo lagu qaaday degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. isla wararka ciidamadii ku soo dhacmay Ceeldheer ay ku guda jirnay xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isbitaalka xoogga dalka ku booqday ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta dhaawacyada booqday ayaa askarta uga mahadceliyay sida geesinimada leh ee uga hortageen dhibaatada al-shabaab ee la damacsanaayeen dadka ku nool degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. mas'uuliyiinta ayaa ballan qaaday inay dowladda shacabka Soomaaliyeed ay garab istaagi doonaan ciidanka qaranka ee sida geesinimada leh isaga difaacay kooxda al-shabaab. waxaan rabnaa inaan ugu bashaareyno qoysaskooda iyo caruurtooda in meydadka argagixisada meel walba la geeyay. ugu dambeyntii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud lagu dilay in ka badan 30 dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab. xafiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka argagixisada ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabayo mashruuc cusub oo lagu magacaabo taageerada bariga Afrika ee la dagaalanka isticmaalka argagixisada ee qaraxyada gacanta lagu sameeyo. mashruucan oo socon doona muddo 3 sano ah ayaa lagu xoojin doonaa hirgelinta sharciyada la xiriira ka hortagga argagixisada iyo dhisidda awoodaha hay'adaha qaranka ee Kenya, Soomaaliya iyo Uganda si ay si hufan uga hortagaan ugana jawaabaan khataraha ka imaanaya.
mashruucan waxaa maalgelinaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Canada waxaana hirgelinaya xarunta la dagaalanka argagixisada ee qaramada midoobay ee hoos timaada UNOCT iyadoo dhinaca farsamada ay la shaqeyn doonaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka hortaga miinooyinka. ugu dambeyntii guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si rasmi ah u shaaciyay in kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu si rasmi ah u furmi doono maalinta Sabtida ah ee 20 bisha September sanadkan 2025 war qoraal ah oo si wadajir ah uga soo baxay guddoonka golaha shacabka aadan maxamed nuur sheekh aadan madow gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi ayaa lagu sheegay in xildhibaanada labada aqal lagu wargelinayo in ay ka soo qayb galaan kala fadhiga furitaanka oo si rasmi ah looguna baahan yahay inay diyaar ahaadaan waqtiga loogu talagalay. kala fadhigan cusub ayaa ku soo beegmaya xilli dalka uu wajahayo xaalad siyaasadeed, amni iyo dhaqaale oo muhiim ah waxaana la filayaa in ajandayaasha horyaala baarlamaanka ay ka mid yihiin ama ay ka mid noqon doonaan ka doodista iyo ansixinta sharciyo muhiim ah oo la xiriira amniga iyo maaliyadda, kormeerka hay'adaha dowladda iyo dadaalka miisaaniyadda, warbixino laga dhageysan doono xukuumadda gaar ahaan xaaladda amni iyo arrimaha la xiriira dib u habeynta dastuurka iyo doodaha ku saabsan doorashooyinka iyo hannaanka federaalka. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa wararkii waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. nabad iyo warsan.